بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم idaacadda iyo shaqaalaha waa salaamaya insha Allah assalaamu alaykum warahmatullahi baan leeyahay xiriirkana waad ku mahadsantihiin adeer waxa weeye dilkaasi ninkaas nin sarkaal ah ahaa xeradii uu ka tirsanay buu joogay xeradana waxa weeyaan meel ammaan ay ahayd waardiya ka saaraa dhinac kasta ka saaraa marka sidaas awgeed qof meeyo xerada dhexdeedii lagu dilay sidaas buu ku noqday meel looga yimid iyo dagaal ku jiray iyo meel magaalada dhexdeeda iyo midna ma ahayn meel ammaan ah oo xeradiisii ah oo askartii iyo saaxiibadii iyo saraakiishii kale iyo askartii ay la nool yihiin bay ahayd meeshii baana meydkiisii lagu arkay oo magaranaysaa si qaab daran weliba u yaala hadda sidaas awgeed waxay nagu muujinaysaa inuu yahay barnaamijkaasi barnaamij shirqool ah cid kasta ay ha abaabusho oo aan isleenahay dadkii uu ka tirsanay uu shaqada la hayay ayaa shirqoolkaas u dhigay sidaas aan nagu aaminsanahay ma garat marka maxay tahay sababta loo shirqoolay asleedina oo ina aamintaana keentaba adeer waxa weeye sababta loo shirqoolay waxa weeyaan meesha dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan waad ogtahay dawladnimadiisii waa burburtay aaminaadiisii waa burburtay wax walba waa burbureen ciidamaduna qayb bay ka yihiin waxaas burburay qayb ka yihiin dalkan wuxuu lahaan jiray ciidamo xoog badan sharci leh oo ma garanaysaa la isku baadili karin laakiin waxa weeyaan waxa burburada ka mid yihiin ciidamadii la isku keenay buu ka mid yahay waxa timid marka damac baa yimid damacaasi oo ah in guriga uu deganaa iyo ilmihiisii in banaanka la dhigo aan la garanayn hadda cidda loo waday barnaamijkaas isagoo kamid ah levelka saraakiisha guryaha dawladda ku leh oo gaashaan la dhexe annagu markii ciidan ugu dambeysay oo ahaa qof maaragtay xataa iska daa in wax kale la waardiyeeyay uu ahaa fooraska ciidanka u haysteena waa la yaqaanaa oo ciidan maaragtay haddii lahayd maayo markuu ugu yaraado guuto iyo urur ugu hooseeya ayaa gaashaan la dhexe loo dhiibi jiray saas awgeed waxa weeye damac baa yimid damacaasana waxaan aaminsanahay in uu shirqoolku ku yimid markii taa laga tago aaminaadda waxaa keenaya dee adeer meel ammaana mayd dhex yaala sababtii uu ku maydkaani oo ma garanaysa ku dhacay baa la rabaa ma garatay marka sidaa awgeed wax baaritaana oo la sameeyey ma jiraan mar haddii baaritaan la sameeyno dadkii isla markiiba horaa laga duugay isla maalintii gelinkii hore habeenkiiba dhintay subax maalintiina waa la duugay intaan maaragtay baaristiisii iyo nidaamkiisii iyo dawladdii iyo midna ayan imaanin iyo dadkii ayan imaanin marka sidaas in waxa oo dhan markii la isu geeyo waxay keenaysaa inaan waddo sax la marin ma garato laakiin warar soo baxayay iyo waliba maalmahan bad jiray waxa uu ahaa in ninkan uu sarkaalkan uu isdaldalaadiisana duruufo ay jirtay ama sabab looga dhigaba marka arinta waxa leedahay wax kama jiray arintu shirqool bay ahayd adeer waxa weeye annagu ma aan aaminsanay arrintaas waxa weeye ninkaas markii ugu horeysay oo loo yimid waxaa la sheegay in jilbaha uu dhulka u yiileen kursi baa agyiilay joodarayaal baa agyiilay geedka ku xiraa kursi baa muxuu ahaa jilbihiisa dhulka u yiilay qof jilbaha qof isdaldalay marka jilba ma dhintee waa istaagi lahay ma garanaysaa waa istaagi lahaa wax calaamadaha oo ka muuqda meeshana ma jiro sida maaragtay bini-aadanka waan garan karnaayo marka la firqiyo oo la ceejiyo oo naftu ka baxayso kaadi baa ka timaada wax qoyaana ma lahayn wax rabada ma lahayn waxa weeye waxaan isleenahay waa wax laga soo shaqeeyay waxaana nagu sii dhiirigelinaya inaan sidaa aaminno waxay tahay sababta keentay in markiiba la duugo ninka sarkaalka ah oo intaa darajadiisu dhan tahay oo xeradiisii dhex jooga oo aan taliyihii buluiska imaanin oon kii gobolku imaanin oo aan dambi baaristii ma garanaysaa CID dadkii haysta iyan imaanin oo arrintiisii aan laga dhigin eheladiisii lala wadaagin waxa oo dhan markii la isu geeyo waxay noqonaysaa faldambiyeed aad moodo in la galay haddana lala degdegay maaragtay sidii loo qari lahaa marka jirkiisa haddaad weydiiseen ma waxaa ka muuqday rasaas ama waxyaabo kale oo sabab looga dhigi karo dilkiisa ama loo aaneynayo maya adeer anagu rasaas ninka kuma dhicin baa nala ku yiri aniga shaksiyaadkii maydkiisa runtii isdultaaga kamid maayo meelo yaryar oo wejiga nabarra uga yiileen baa layidhi oo laba nabar ah oo aan saas u weyneyn oo dhici karta geedka xataa iyo wax lamid ah in uu ku dhacay suuragal ay tahay ama si uun loo dilay
marka innaga waxa weeye waxaan haysanaa waxa weeyaan ninkaan ciidan buu ahaa diiri ciidamada koolba waardiyaha joogay askartii hadda galabta la ii sheegay run ahaana ma aqaan been ahaana ma aqaan laba askariyaa la xiray laakiin waxay ahayd ciidankii lahaa waardiyaha sidii ciidan ahaa inay xabsi joogaan bay ahayd inuu sarkaalkii shaqada lahaa xabsi jooga bay ahayd in muxuu ahaa diilayd waa heeganka lahaa joornaatigii ninkii ahaa oo muxuu ahaa kaababoostii waardiyaha muxuu ahaa madaxda u ahaa kulligood waxaasoo dhan waxay ahayd in la xiro bay ahaayeen oo iyagoo xiran ma garanaysaa baaritaanka wixii kasoo baxa lagu xaqiijiyo inuu ninkaan isaga faldambiyeedka isagu geystay iyo in loo geystay inay la xaqiijiyo bay ahayd askartii lama xirin lama taaban madaxdii lama taaban waxa weeye baaris lama samaynin marka adeertaasi waxa uguma qanci karo waxaan isleenahay waxay u dhowdahay haddii aan dawladdu ay warkaa wax ka bedelin oo loo qaadan karaa nin waliba ahay inuu fursadda uu haysto ka faa'iidaysanayo oo cidda uu ceel qabo uu wuxuu rabo ku samaynayo ma garan maadaama idinku odayaashiisa aad tihiin maantana aad kulanteen yaad ku tuhmaysan markaa falkan ay ku lug lahaayeen ama dilkan ka dambeeyay waxa weeye ninku ciidan buu ka tirsanaa xerana waa ka tirsanaa marka waxa weeyaan saraakiil hadda anigu magacyadooda anigu hebel iyo hebel hadda inaan meeshan ka idhaahdaa dan ma aha laakiin waxaa la sheegay in sarkaalka xerada haysta iyo ma garanaysaa ninka ka sarreeya labadaba waa la sheegay waa kolley saxaafaddana waa lagu sheegay baan u malaynayaa marka hadda waxba hadda anigu inaan hebel iyo hebel idhaahdo wax dana ii samayn mayso ninka annaga riboortkiisa ilaa madaxweynaan geynay magac guud ku geynay shir jaraa'idna waa ka qabanay dawladdana waxaan ka sugaynaa inay nagu qanciso maydkiisa inay soo bixiso ay baaris rasmiga samayso lala wadaago dadka ma garanaysaa arrimahaas aqoonta u leh waxay ahayd in farinjeer inta la geliyo sidaa la sameeyay ahayd haddeeran waxaan ka dalbaynaa inay ka soo bixiyaan ay baaris ay ku sameeyaan haddii taas la waayo waxaan u qaadanaynaa inay ma garanaysaa dhibaatooyinka dalka ka dhacaya mid oon kamida inay tahay oo qof basoorad lahaa dilay qof baana baxsaday inay ciidankii dhexdiisa ka joogto nimaa lagu sirqiyey sarkaalkii ciidanka madaxda u hayaa lagu sirqiyey cidda dhishaan lama yaqaano waxay la tahay bedelkeeda saasay noqonaysaa ma garan waayo ugu dambeyn marka waxaan rabaa nabadoon inaad ii sheegto ma saraakiil booliiska ay miyay xurguf ka dhexeeyeen oo loo sababeynaya dilkan ma adeer dee hadalku iska badan yahay dee aaway amarkii guriga ka bax lagu yidhi nin sarkaala oo gaashaalo dhexa ayaa dhihi karaad u malaynaysaa guriga ka bax waxaa weeye waxaa dhihi kara nin muxuu ahaa ka sarreeya ayaa amarkaas bixin kara waxaa bixin kara nin markaas asaga foreska ciidanka haysta laakiin aan ninkaani uusan ciidan uusan hayn xerada ninkaani marbu madax ka ahaa laakiin hadda madax kama ahayn wuxuu ahaa sarkaal caadi oo ciidanka ka tirsan ninka markaas ciidanka isagu jooga xukuma iyo nin ka sarreeya ayaa amarkaa bixin kara amarkaasina amar jira waaye ilmahaga kala bax meesha in la yidhi oo ka saar meesha lagu dooday lagu soo laabtay habeenkii 5 saac ugu dambaystii la waxay kabacdina maydkiisu uu ku xigay runtii marka ma dareemi karno hadda waxyaabaha noocaasi waxa weeye wax badan baa ayaa imaanaya hadalka marka anaga naga baxaya ama dadku waxa ay aaminayaan waxa xakamayn kara dawladda oo si sharci ah booliiska Soomaaliyeed taliyaha booliiska Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa cidii hoos ka sarreysa iyo cidii u qaabilsan barnaamijkan waxaan ka doonaynaa in baarisda la ku qanciyo anaga wax kale oo nala ku qanci karaa ma jiraan falku hadda si uu dhacay anagu ma ahayn dadka dhalinyarada hadda loo sheekaynaye waxaan nahay anagu haddii ilaahay mayo dadkaagnaa dawladihii dalkan ka soo dhacay oo dhan badankooda siday wax u dhacayaan iyo sida laysu ma garanaysaa khaldi karana fahmi karna arrintaasi ninkii in la duugo waxaa lagu duugi karay xero dhexdeed markuu ka dhacay in baaritaankii uu meel dhacay ayaa lagu duugi karay waa la duugay marka horena in la baaro ayaan xaq u lahayn oo naloo baaro oo shakiga laga saara dadka hadda arrintaas la helin waxay la tahay arrintaasi arrin taagan waaye ma garata ciddii gashay iyo ciddii maamushana Soomaalidu hadday dawlad tahayna waa istaqaanaa hadday caadi tahayna waa istaqaanaa marka intaa u dhaafi maayo ma garata intaa u dhaafi